runtii waxaan isla wada joognaa dad badan waxyaabo badan waa la wada ogaa maaragtay waa isla socday laakiin shirar ka dhacay xamar iyo maaragtay dadkii goobjooga ahaa Dr. Sucaad iyo professorka ayaa hadda nagala jooga inay aan la qaybsano bal maaragtay sidii ay u arkeen sidoo shirka ahaa runtii qof dhan oo goobjooga haddaa haysato waa jaanis aan la heli karin inkasta ay dadka qaarkood ay islahaayeen hadday soo survival garaan ay soo noqdaan alxamdulilah waa ay soo noqdeen iyagii oo dhan marka ugu horeyso waxaan kusoo dhaweynayaa Muuse oo ah farsatarkeenaan halkaan reerholan haddaan nahay ahmiyadda shirkaas ay leedahay runtii oo ay xisbiga hil qaran u lahayd aad bay u weyn sababtoo ah hoggaanka sare oo xisbiga wuxuu aad iyo aada uga fekeray in xisbigu aanu noqon karin xisbi uun dabadda uun ma garanaysaay laga hadlo ama shirar lagu qabtay dabadda uun ma garanaysaay uu noqdo mid qabta in dadkii iyo Soomaaliya macnihii lala wadaago oo lala kulmo oo la dhexdooda la tago ahmiyad weyn bay lahayd muddo badan baana doodu socotay in iyadoo laga fikirayo dadka meeshaas tagaya iyo biimaha ay galayaan iyadoo laga fikirayo ayaa dood dheer laga galay ugu dambeyntii waxaa loo arkay in biimaha la galayo oo dadka naftooda galayaan iyo ahmiyadda ku jirta ummadeena ugu jirta mustaqbalka inay weyn tahay saas darteed baa shirkaas lagu go'aansaday waxaana fududeeyay markii la helay dad iyagu horay naftoodii iyo maalkoodii waayo dhaqaale ahaan lagama bixi karin xisbiga awoodiisu ma ahayn inay maanta dadkaas oo dhan ka wada bixiso xitaa transportka ay ku tegayaan meesha waxa suurtageliyay markii la helay dad diyaar ah oo ayagu raba inay tagaan saasay ku suurta gashay waxaa kale oo iyana suurtageliyey oo shirkaas inuu dhaco suurtageliyey walaalahana xamar xisbiga dadka xisbiga ku jira ee Muqdisho jooga oo iyaga laftigooda diyaariyay in shirkaas rabana in ma garanaysaa lagala soo qayb galo diyaarna oo ahaa muddo badan weydiisanayay waxaa kale oo suurtageliyey walaalayaal shilimada dadkeena maanta hil qaran ka mid ah oo reer holan aan isku darnay saddexdaas arrimood haddii aanay dhici lahayn shirkaasi ma suurta galeen awoodaha suurtageliyey in shirkaas la qabto inaynu ka mid nahay dadkeena reer holan Muuse aad ayaad u mahadsan tahay marka ugu horeysa Sucaad waxaan weydiinaynaa Sucaad marka ugu horeysa impressionkeedii ugu horeeyay markay ka degatay magaaladii xamar oo aan u maleynayo iyadoo magaaladaas ay ahayd sidii runtii wax la iska dhahay ma laakiin 20 sano horteed intaan dagaalada dhicin meesha ugu nabadgelyada badan dad badan oo waagaas macallimiinka ahaan dhihi jiray waa peace waa paradise of peace qofka haddii uu habeenkii labada habeenimo xamar mari jiray dadka waliba cadaanka waa la qiimeyn jiray haddii xitaa wax ka dafa iyo iska daama jirin iyo hadda intii dagaalada ka dhaceen marka waxaan jeclaan lahayn kulay isbedel badan ay jira laakiin tay iyadoo indhaha ku soo aragtay ayaa wax walba ka muhiimsan Sucaad waa kugu soo dhaweynaa assalaamu calaykum waxaan jecelahay marka hore inaan waalidiin maaragtay gaarsiiyo sidaan waxaan soo arkay iyo waxaan soo maray aad baan ugu faraxsanahay inaan tiimkan raacay oo professorku maaragtay ku jiray inaan ahayn team maaragtay isku xiran annagoo inta badan yani professor Ahmed maanus baran oo markii ugu horeysay gabar kale ku jirtay waxaa la yiraahdaa Xamdi magaceeda dambe Sheekh Maxamed Cabdullaahi iyo namo badan Cabdi Sheekh iyo Cabdirashiid kulligood waxay ahaayeen dad maaragtay haddaan irano xagga
fikirka iyo xagga waxbarashada iyo xagga experience-ka nolol soo maray oo maaragtay hadafkooduna xil qaran ahaan hadaf weyn leh inay maaragtay wadankii soo arkaan. markan anigu runtii waxa sababta ii geystay inaan wadankii soo arko waa sabab maaragtay waqti dheer aniga igu jirtay nafsi ahaan maaragtay inaan wadanka soo arko. dadka iyaga Soomaalida halkan Holland wax badan maaragtay dhibaatadooda baan arkay, wax badan baan maaragtay waxaan karkaray baan ka qabtay, laakiin dhibaatada wadanka gudihiisana waan la socday, waan ogaa ilaa xadkay jirtay, laakiin siday tahay guud ahaan iyo waxay tahay maan yani fikrad kamaan hayn. markaan Soomaaliya soo galay annagoo diyuuradda maaragtay Nairobi ka kacneen, markaan airportka usoo dhaweyn Asad baa agteyda isla fadhinay. aniga Asad maaragtay daaqadan ka eegnay dibadda waxaan aragnay badii oceaankii quruxdiisii ciidii caddeed iyo airportka maaragtay iyo Soomaaliya dhulkii oo isku xidhan. waxay ila noqotay sidee lu'lu oo kale maaragtay lu'lu abadda laga soo saaro maxaarka. markaad maxaarka waxa weeye sidii qolof oo lu'lu ku jirto. Soomaaliya oo kale sidii lu'lu-aas oo kale oo geed bad hareeraheeda oo dhan, yani sidii lu'lu oo meel sidii lu'lu oo ku jirto. quruxda iyo ciidii caddeed, yani ciidaas waxaan ku arkay meel kaliya waxa weeye around the Pacific Ocean, Maraykan, meel la yiraahdo South maxaa la yiraahdaa California, yani quruxda. markaasaan yidhi haddana waa wadooyin dhaadheer oo yani cidna qalana jirin, waxbaan jirin, bas baddaas iyo ciidda. markaan soo daadegnay soo galnay gaariyaal baa lagu qaaday, waxaa iga soo hor imi burbur meel walba burburan tahay. meesha dhakhtarkaan tagana waxay ahayd dhakhtar la yiraahdo feeding center waxa weeye meesha organisationada caafimaadka maaragta dhisay waxay usoo diraan maaragta wax cunto iyo waxyaalo kale carruurta inay maaragtay xagga tallaalka waxa lagu tallaalo iyo sida. waxaan arkay safka waxaa joogay ilaa 300 oo dumar. caruurtii sideedna waxay ahaayeen cumrigooda 6 bilood ilaa 5 sannadood. waan weydiiyey safkii ugu horeeyeen arkay waa yaabay cuduraday qabaan. yani waxaa xalkeeda waxa weeye nus saaco kaligeed qofkaas maaragtay nus saaco kaligeed xalkeeda lagu gaari karaa. yani maaha cuduro adag, yani cudurada qabaan waxa weeye cuduro ka saabsan ka sabab ah infection. ilmo yaroo maaragtay la yiraahdo hooyadii tiri maqaarka kusoo baxay maaragtay cuncun, ya waxay noqon kartaa fungal infection. wax maaragtay cuncunkaas sida ilmahaas isu cuncuniyay iyo gacmihiisa iyo wasakha iyo jirkiisa iyo wasakha waxay noqotay infectionno waaweyn. maskaxdiisii bay maaragtay waxaa la yiraahdaa sanfuuro waaweyn kasoo baxeen wounds ilaa gudaha. ilmihii laftiisii wuxuu yani sidii suuxsan yahay, lana waa infection adag. ilmo kale oo sidaas oo kale oo aada u xanuunsanaya waxaan anigu arkay inuu wax la yiraahdo meningitis, paralyzed half. yani jirkiisa haddana hooyadii waxay lahayd wiig ka hor wuu soconayay uu hadlayay, iminkana wiig ma hadlayo ma soconayo haddana 2 goor 3 goor ku timi meesha wax lagu tara ma jirto. mushkiladu maaha dadka waxaa ka shaqeynaya centerkaas hablo yaryar ilaa 16 ilaa 17 sannadood oo nurse maaragtay isu sheegaya. haddaad su-aalaan usoo jeediyey hablahaas meesha ka shaqeynay
cuduradaas hadday yaqaaniin ilmahaas maxaa iminka haya symptomska haya science-ka haya maxaa ka garanaysa theoretical ahaan waa waxay soo maskaxda ka xafideen maaragta way ogyihiin yani waa kuu sheegayaan laakiin gudaha haddaad usii diib ugu soo gashay ma yaqaaniin tafsiisheeda waxaan ku yidhi sidaad uga hor iman karta ilmahan iminka aad arkaysid inuu dehydrated yani inuu maaragtay biyihii ka tagayn inu cuntadii ka gaabsan tahay oo infection weyne sidaad uga hor iman karta maxaad ku qaban karta marka ugu horeysa waxay tiri anaka protocolka yadu waxa weeye inaan siino 2 nooc antibiotic penicillin iyo nooc kale oo amoxicillin labada waxaan rimeeyay nuse waxay ku yaalin waxay ku jiraan 2 maxaa la yiraahdaa qaarurado iyada oo plastic qaaruradaas way caddeed asalkeedu caddaan kalarkeed markay isoo dhigtay wuxuu ahaa madow waxaa ri maxaa madoobey iyo qaarad hada magaca ku qornaa ambisiliin ma arka waxaa ku yiri maxaa madoobey tirida sidaas waa mar walba marka la furooyo يعني المهي مركز فريسة قارد أديكو كعمها جوسخ يعني المية حد يعني الماء والبقي قبضته وإنفكشن ودش إلى هوست تكبر يحمى أو كتير يعني دي إيد بلا جلافس ملها وحبو ملها المكان قبصان سا يسقي بسين سا وح بسين يعني إنفكشن كي وحين نقولي السيركل وكذا يا marka simple ways yani yani waxyaalahaas kale ma ha wax adag oo laga hor iman karin waa wax maaragtay ugu asaaska mediciinka oo dhan asaaska caafimaadka oo dhan ya tutuka xigta dadkaas waxay caruurtaas waxaa la siinayo oo malnutrition waxaa la siinayaa waxa la yirahdaa plumpy food yani وحرتقن وكتشرة بلاستيك ingredient waxa ku jirana maaha wax adag waa shaciir ridqan oo ku jira plastic waa yaabe qofka waxay laba nooc qofka sifiirka ah qofka aad u xanuunsanaya ilmaha aad u xanuunsanaya nooc weeye kalar kale ka kalena nooc kale ma duwa waa isku nooc anigu runtii aad baan uga xumaaday waxyaalahaasaan arkay leena sababta waxaan ka xumaaday sababta lacagtan dowladaha Europe ay dirto sanad walba aan isweydiiyey halkay tagtaa yani waan ogay anigu xagga Holland imisa sanadkii bay diraan imisa sanad xagga caafimaadka iyo Afrika u diraan خاصة وان اوجهي ضد بدن ونسمقانو كشقية ارتسيزون درخرنسي ويلا بدن او اوج امسا سو غارن لكن ميشي تكتو بان انغو ان كيابي ضدكي او باهنا باني سو غارن markaan soo noqday maalin dhexdeed contact aan leeyahay dad badan oo xagga caafimaadka aan isnaqaano si fiican kolleega waxay yiraahdeen Sucaad distributionka Kenya baa lagu sameeyaa marka Kenya lagu sameeyo maanaku ma ogin waxa sidee u dhacdo kadib inkastay inteena badan aan isleeyahay marka ka hadlayso waliba ilmahaas yar oo xanuunsan anagoon aan meesha joogin inay runtii emotional noo keenayso laakiin waa wax run ah oo ummadeeni ay ku nooshahay wax indhaha laga qarsan karan ma aha taas runtii aniga kolley waxaan aad ugu farxay inaad tiri waa booqday meelaha maaragtay oo professionkaaga ahaa isla markaana kolley aniga idin dhahaye inaan aad ugu sii faraxnay waliba anagoo isdhayna Sucaad naxdintii iyo meelihii burbursanaa iyo Hiroshima xamrow ekaata iyo ama noqon weyda hadaaba tiri waa ku noqonayaa June marka runtii dad badan ay waxay gelinaysaa maaragtay iyagana yididiilo kale hadayna noqon xataa inaan bal qofkiisa soo kale u noqonaya aan qaaraankeena isku dardarsanaan isleeyahay marka aad u mahadsan tahay runtii muqdisho caasimadda waddanka waxay ugu dambeysay 1900 iyo 1989 1989 soma 1989
89 ayay ugu dambeysay shirkii lagu qabtay meesha International Congress of Somali Studies ayaan ka qayb galay halkii aan seexan jiray Cali Mahdi hotelkiisii baan soo arkay oo hotel mahay markay waa qolof meel iska taala anigu 3 amuurood oo iga naxiya ayaan soo arkay markaan soo dhaafto wax kale iyadoo duuban wax iga farxiyana waan arkay 3 amuurood ee iga naxiyay waxa weeye magaaladii Muqdisho waan ka sheegay anigu BBC-da iyo idaacadaha dhageysateen ma ogi anuma deena in qombulo dirdiyeer lagu riday oo kale ayaad moodaysaa dekan ya ayay noqotay magaalada subaxii waan kici jirnay waan soo wareegi jirnay ya soo xagii liidiya xagga waan tagnay xaggan digfeer iyo xagga ayo waan tagnay intiina garanaysa magaalada meelo badan baan soo marnay oo good survey finish way burburtay magaalada nothing really else magaalo aad moodo in 10,000 oo garneel ay ku qarxeen oo aqaladii wada qolof ay yihiin hotelkii Shabeelle oo intani ka hadhay adarkaysa Juba oo qolof ah oo wax walba ka dhamaadeen saatun u taagan laakiin de any time iska dhici kara and on dadka ku dhex noolina ay yihiin dad masaakiin oo Soomaaliya amba soo qaxay ama magaalada degan oo guryahoogii waxoogii baabeen oo meesha ku dhex nool oo hog yar ku dhex jira qolofta ku gurgurinay markay galayaan meesha marka magaaladu hadday ahayd xaruntii wadanka oo ay meesha ay ugu badan yihiin dadka Soomaalidu ee degan highest concentration of Somali population is in Mogadishu. It's over 1 million people. waa dekan markaasa wasakhda taala meel walba adiyaabaysa anu demoyni bari meeyar baa jiro waxba la nadiifinaya maarag wax la nadiifiyo ya wasakhda meel walba taala adiyaabaysa filth everywhere so material base ya wixii maaragtay binaadamku dhagax iyo aqalkii iyo wadadii Maka Mukarrama dee wadama hadde way ahaan jirtay wadadii Maka Mukarrama wadama waa bacaad wixii yaalay iyo wixii sibirkii yaray wixii uu go'go'ay bari hore go'go'ay Nile Triangle wadada kala qaybinayay halkii yar kala qaybinayay Nile Triangle qorigeegii oo ku yaalay qoriyihii qaarna way taagan yihiin qaarna saasay u dhaceen wadama kolkaas baabuurku dee waa inay wax baabuuradan wada baaliyay oo wada daatay oo dadkii haddana ay raacayaan marka waa inay wadada hadday marayaan way go'go'antahay oo kolba sidan oo siigada ka kacaysa yaabas waa marka Mukarrama waa the major center of the city or the street of the city material base ki horta sidaas ayay magaaladii u burburtay yani waa naxaysa marban soo noqonaa you can qadad ma cuni karist you can laakiin waxa ka darantaa dadka magaalada jooga أنا waxaan ku qiyaasay dadka magaalada jooga survey wanaagsan hadii la sameeyo ugu yaraan 85 maybe even as high as 90 sagaashan inay bukaan dad sick jirkooda ka garanaysa wajigooda ka garanaysa adarkaysa inay bukaan waa biyaha xun amba biyo la'aan biyaha xun iyo biyo la'aan labadaba waa cudur cuntadii nafaqadii oo ku yar haday helaan wada kasta miisaankooda qodad ka garanaysa ya inaan ka daadiisu ay tahay 25 jir tay wuxuu leeyahay level height ka ma dharar iyo miisaan buu leeyahay dhakhtaradu way yaqaan waad ka garanaysaa lafa socda way ya socda way kan si boqolkiiba 80 dadka magaalada xamar degani way bukaan waxay u bukaan waa daran yihiin ba cunto xumo cunto la'aan biyo xun dawo la'aan wad ka muuqata wadalkaas dadka ay oo dhamaaday wad arkaysaa haddaba dhalinyaradii dadkii waa dhamaaday hortaada socda wax weyn oo buuran baad noqon markaad meesha tagto هذا ده material base iyo human
capital, material capital, human capital idinka taa dad ku macnaysan doona xoolihii dadku ay abuurteen wadada geedka aqalka baabuurka material base waa degrade waxaa ku dhacay yani hoos degradation xoog la ayaa ku dhacay oo indhaha aan qabanin oo meel walba dadka qaxootiyaho masaakiinahoo ya sidan u jiifo oo aan baraadinaya wax iyo caruur yaroo yaacayso wada qaawan oo darkaysa duufkooda daayo darkaysa caruurtii qaxootiga weyd magaaladiina way bedelantay anigu dadkan waxaan ahay dadkan aad dadka Soomaaliyeed aad u eega oo dadka xamariyiinta amba banaadiriga dadka la yiraahdo waa dadka inoogu ilbaxsan weligoodna waa dadka inoogu ilbaxsan marka laga adduunyada garanayay ilbaxsan magaalada degmooyinkii deganaayo man doonayna soo eego way diga rogantay amba way ka baxeen amba way ka yaaceen waxoogaa baa ku hadhay intii ku hadhena wejigoogaad ka garanaysaa inay si kala noqdeen oo ay darinyadu ay aad iyo aad u hayso marka material iyo human capital labaduba sidaas ay dhulka u galeen hadday magaalada muqdisho markhaati ka tahayna Soomaali waxa qabsaday waxaan qabaa inay markhaati ka tahay oo dad dibadda baadiyaha u baxdo inay kasii darantay oo dadka badanka soo yaacaya magaalada yimid qaxootigii waa dadkii ka yimid dhulkaas inay kasii daran yihiin dhanka kale markaad duriya daabac markaad dhan kale u rogto waxaan soo aragnay laakiin iyadoo sidaas tahay waddanka ugu liita adduunyada aad soo aragtay iyo magaalada ugu liidata haddana dad Soomaaliyeed oo dad waaweyn ah dhalinyaro ah dumar yar habla dumar waaweyn oo haddana rajo ku jirto had iyo jeerna ka hadlaya waqtiga soo socda sida wax looga qabsanayo waxaan loo bedelay ka hadlaya jaamacaddan anu ka hadlay anu israacnay dadka jaamacaddan ka hadlay maalintii ka horeysa la yidhi jaamacadda ka hadal maan vote baa la qaaday meeshu khatar may tahay waan tegaynaa waan tagnay jaamacaddii waan tagnay within less than 5 hours waxa la keenay ilaa 380 arday baa meesha soo galay maqsinkiiba meel qaada waay daaqadii oo furan oo nalku in si layd u soo gashay sidaa yar dhalinyaradii jaamacadda ku jira sidaa oo istul fuulshin so eager seminar baanu galnay ilaa 3 saacadooda su'aalaha ay ku weydiinayaan يعني أنا سكاري لاتن سنوات بين جامعات كدقي أم سمنار دقي سؤالها يكوي دينيان وحاول يكون PhD student كأي ويديان مريكان they were so good يعني واحد you can see the potential لكن the context كي وحي أردن بس كحدا يركا كوجت واحد لقيه بس هاك قاركودنا نسوق قرآن haddana su-aalaha ay ku weydiinayaan siday u diyaar yihiin iyo maaragtay energy-ga ku jira iyo markay ku arkaan siday maaragtay usoo socdaan ilma ka imanayso potential wadarkiisa markaasay attentionku yani de inaku dhulkan waan iska qosqosnaa iyagu waa inay waxaa yare 1 minute hadday ka faa'iidaystaan wadarkiisa waayo waa scarce waxaan oo dhan xaggooga moogta marka inay degdeg wuxuu qaataan I was impressed with those students, absolutely impressed. But here's another issue. jaamacadda markaan ka hadalnay Saacad way joogtay ayaa hallkii weynaa waxaa la yidhaahaa Somalia University hodan bay ku talaban filaya I think it's another jaamacada badankoogu waa iska high school really laakiin jaamacada badan waa meesha jira kolkaan hadalkii dhameeyay intaan su'aalihii la gelin baan ku yidhi iyaan eegan ku yidhi war dee calankii Soomaalidu aawid mabaarkii calan Soomaaliya markaas ninka madaxda ka jaamacadda markii hore xafiiskiisa markaan fadhiyan ku soo soconay halkii hallkii iyo yiri hadda ogaa professor Matro halkan cid walba way joogtaay ogow cid walba way joogtaay ogow wadiga waan fahmay wuxuu jeedo ana markaa waxaan goostay inaan dardar marta
waxoogaad ku sii dayso calankii away baan ku markuu dhamaatay waa la buuxa meesha macallimiinta way buuxa macallin ma jiro markaasa lagu yiri wuxuu leeyahay dee jaamacad walba dee iyo iskuul walba wuxuu leeyahay calaamad yar buu leeyahay oo lagu yaqaano sooma logo sax marka logoga halkaa bartankeega yani calankii Soomaalida oo yar dee oo dee intan ka yar dee halkaa yaa dhaxda kaga jiro marka and I decided at that moment intan istaago calankan ku jeesto inaan calanka u heeso soo tamarka kii dilaacaya ha dilaaco kii cadhoonaya ha cadhoodo I really don't give a damn to be honest with you soo tamarka wadi garmis waxay isu kaaya xidhay kaa wey haddaanu kaasi jirin shaqa iskuma leh Somali for all TV way website way dadku wacyigeliya sportiga iyo waxaa fara badan oo ka shaqeeya maxaad leedahay daawashayaal dadka daawanayo inteedu waa mid gaaban waxa weeye adigoo halkan jooga oo kubadaada ciyaarayo caruurtaada iskala joogo oo telefishinkaaga iska daawanayo shaqadaada iska hayso amba iskuul jaamacad ku jira oo halkaagan iska joogo Holland ayaad wax la qaban kartaa dadkii ummadda haraadan ee doonaysa waddankeega inay soo dhigto wax la qaban kartaa marka dadka idin dhageysanaya waxaan ku leeyahay halkan degan amba idin daawanaya soo gala heel qaran fahma qaata aynu wada dhaqaaqno garabka hal isqabsado ummadii waan soo aragnay dhibaatooyin aan la qiyaasan karin baa haysto dhaqaale xumo iyo cudur iyo aqoon darro iyo hoggaan la'aan iyo abaarihii waxaas isku wada beeray laakiin haddana waxba laga qaban karaa marka heel qaran wuxuu ka mid yahay dadaalada dadku ay ku jiraan in wadankii dib loo soo nooleeyo dhalinyarada idin dhageysanaysa dadka waaweyn idin dhageysanaya dumarka idin dhageysanaya intaba waxaan ku leeyahay gala heel qaran aan wada dhaqaaqno aan wada soconno waqtiga cusub aan ka qayb galno aan dhisno wax ummadda Soomaalidu ay u aawida oo wada cusub u fura sidaasaan aad iyo aad idinka rajeynaya inaad yeeshaan heel qaran wallahi waxaan u arkaa muxuu ahaaye xisbi wanaagsan oo mustaqbalka ah sababtoo ah waxa waaye aniga magaca ayaa soo jiitay qarankii ayuu u hiilinayaa sidaa daraadeed waxaan aan u arkaa in uu yahay midkii Soomaali dhibaatadan haysata ka bixi lahay asaga kaliya ma ahan iyo dad badan oo macnaa oo Soomaali ah oo macnaa arrimahan ay noqdaan kuwa Soomaali waxa maanta haysta ka bixiya habar yar okay motivation adiga ku wada ma waxa waa inaad mustaqbalka wax noqotid wasiir noqotid madaxweyne noqotid mise waa mid والله إنما هقول لك هتوع ambition سياسية وأنا أقول جرا مجرا waxaan kaliya ka seexan waayay caruurta Soomaaliyeed caloosha ka soo jeedo anigu reer Saboolan ka dhashay Soomaaliyaan ka yimid waan jeclaan lahaa shalayto dhibaatada markaan ku jiro wixii gurmada wiilka maanta jooga iyo gabadha maanta joogaana wax u gurmada waa u baahan yihiin marka waxa ugu weyn in anigu u guntanayo waxa weeye adduunka kale axsaab iyo afkaar iyo siyaasad ayaa lagu maamulaa looguna tartamaa hoggaankeeda waxaan doonayaana in ay soo baxdo oo fursad siino dadka xirfadda leh ama ha noqoto carab aqli cilmi wax walba ha noqoto daacadnimo shacabkooda tusa sidaasna ku kasbada taageerada dadkooda markaasna ummadda Soomaaliyeed hoggaankeeda qabta waxaan u arkaa wadada kaliya inay tahay xalka ummadda Soomaaliyeed ugu gaarto waxaa jirtay in professorkii tagay Soomaaliya nagana warsiiyay warbixintii Soomaaliya dhabteed annaga Soomaaliya waxa noogu dambeysay ilaa iyo 12 sano ka hor marka aad iyo aad baan ugu farxay yani fikraddu soo bandhigay iyo mustaqbalka Soomaaliya sidii wax looga bedel iyo xisbiga sidoo xisbiga qaran xisbiga sidoo wado xisbi aanan hub iyo kala qaybsanaan aan aaminsanayn marka waa tala fiican waxaan aaminsanahay mataqaan hadii sidaa ku socdaan in horumarku gaari doonaan dawladda aad rabtaan sidee u taala anagu dawladda aan rabnaa waxa weeye dawlad Soomaaliyeed oo iyadu iska wax u qabsa lagu dhisay oo dadku ay ogol yihiin oo xalaala oo karti leh oo ummadana wada cusub u furta adduunyada kalena afgarata sharafkii Soomaaliyeed adduunyada lagu lahaa soo celiya waddanka gudihiisina dee dhista oo cudurkii iyo gaajadii iyo aqoon darradii iyo cabsida taagan waxaasoo dhan ku qaada dadaal cusub oo lagaga baxo taasaan rajaynaynaa inay noqoto dawlad Soomaaliyeed oo aynu wada leenahay oo inoo dhalato aad u mahadsantahay anagana waa rajaynaa taasoo kale